السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ضوضي الدقيستيال ملك سو جوجتان idilkiin ku soo dhawaada barnaamijkeeni tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle barnaamijkeena tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee shabakada warbaahinta Shabeelle sanadkan waxa taabagelinaya shirkadaha kala shirkada korontada ee Beko iyo shirkada Coca-Cola su'aalaha waxa soo diyaariyay oo markaasi degmooyinka la weydiinayo isla markaana si qurux badan u soo diyaariyay doonayna in degmooyinka ku kala saaraan dugsiga ganacsiga iyo xisaabaadka ee adalti su'aasha dadweynaha waxa taabageliyay Somali Syrian Hospital dawadayaal dhageystayaal caawa barnaamijkana waxa nagu madlan oo ku tartami doona degmooyinka kala ah warta nabadda iyo Wallaweyn barnaamijkeena tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee shabakada warbaahinta Shabeelle waxaan caawa rajaynaynaa in tartan kale oo xiiso badan aad daawataan oo aad dhageysataan dawadayaal barnaamijka waxaa idin la socodsiin doona aniga Xasan Wali Sheekh Abubakar saaxiibkay Maxamed Axmed Jimcaale oo gudiga ah oo inala jooga saaxiibada Kulow Cartos iyo Borow meesha kama marna xagga farsamada idaacadda waxay noo jooga saaxiibkeen Bashiir Maxamed Cali Bashka Cadde sidoo kale xagga farsamada muuqaalka aad ka daawanaysan barta inuu Facebook ku leenahay ee Shabeelle Media Network waxay noo jooga Engineer Cabdiraxmaan Muxiidin saaxiibkay Cabdikariin Ciise Cadaawe ayaa isku dubaridaya kaamiradahana inoo jooga daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada mar labaad barnaamijkeeni tartan aqooneedka shabakada waa hagaag daawadayaal dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ismaqal wanaagsan kulanti wacan barnaamijkeena ayaan guda geli doonaa sidaan hordhaca barnaamijka ku sheegaba waxaa ku tartamaya caawa tartamayaasha degmooyinka kala ah warta nabadda iyo Wallaweyn barnaamijkeena tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle intaanu gudan gelin oo aan su'aalaheena bilaaban marka hore aan siiyo tartamayaasha labada degmo si ay markaasi uga hadlaan diyaar garowgooda iyo haddii ay jecel yihiin meelo ay kala soo xiriiraan dadka iyaga taageersan ee daawanaya ama dhageysanaya halow tartamayaasha degmada warta nabadda halow tartamayaasha degmada warta nabadda waan ku maqalnaa Shabeelle soo dhawaada warta nabadda waan dhownahay radio Shabeelle marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala inoo suurageliyay inaan caawo ku tartanno barnaamijka tartan aqooneedka ee qabanaysa idaacadda caalamiga ee Shabeelle Media sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa degmada nabadda ee Wallaweyn waxaan leeyahay caawa waxaan rajaynaynaa tartan xiiso badan inuu na dhaxmaro kaasoo aan rajaynayno inuu wanaagna noogu bilowdo wanaagna uu noogu dhamaado degmada Wallaweyn haddii caawa ay guuleysato waa warta nabadda oo guuleysatay haddii warta nabadda ay guuleysatana waa degmada Wallaweyn oo guuleysatay waxaan leeyahay soo dhawaada caawa insha Allah tacaala guul iyo guul darro labadaba u fadhinaa waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano haddii eebaweyna idmo waana ka bax ومحسنتين ترتمياشا دقمدا ورطة نبدا مركنا وحنو يريا ترتمياشا كلا دقمدا Wallaweyn هلو Wallaweyn هلو راديو Shabeelle سودو هذا وان دونا هاي مركوري الله سبحانه وتعالى يا معاد كلا ونو سورة قريي إنا كتر سنو راديو Shabeelle هبينكي لبعض الله كجيب عنو معاد علينا إذا عاد Shabeelle جديقا مدحضة iyo shaqaalaha marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa labada shirkado ee tartankani nataabgelinaya Beko iyo Coca-Cola iyo sidoo kale dugsiga ganacsiga iyo xisaabaadka ee adalti oo soo diyaariyay su'aalaha qiimaha badan ee lagu kala saarayo degmooyinka dalka mahadcelin kadib waxaan mar kale u mahadcelinaynaa degmada warta nabadda runtii walaalkeen u hadlaya degmada ayaa sheegay in haddii warta nabadda ay badiso ay la mid tahay Wallaweyn oo badisana ay tahay warta nabadda oo badisa waa gartay aad iyo aad mahadsantiin tartamayaasha degmada Wallaweyn idinka iyo tartamayaasha kale ee warta nabadda waxaan jeclaan lahayn inaad nala ilaalisaan habsami socodka iyo shuruucaha kale ee barnaamijka u yaala degmooyinka haddii ay qadadka ka go'aan ama taleefanka ay cillad ka dareemaan waxaan jecelnahay inay inta aysan daqiiqada su'aasha laga sugayo aysan dhammaan inay la soo xiriiraan guddiga tartanka
mar kastana inaad teleefonkiina hubisaan aad ayay muhiim u tahay si aad u ogaataan inaad nala socotaan inaan ismaqlayno oo aad qof u xil saartaan in teleefanadiina ay ilaaliyaan si innagana inugu fududaato idinkana idinkugu fududaato waa mahadsantiin wixii cabasho ah iyo brosijarada la raacayo inaad barnaamijka nala ilaalisaan waa jeclaan lahayn tartamayaasha labada degmo markan guddiga ayaan siinayaa si uu soo gudbiyo nambarada markaasi lagu kala hormarayo ama lagu cadaynayo degmada bilaabi doonta su-aasha koowaad waa tahay xasiweli caawa degmooyinka waa wardhigley iyo walaweyn waxay kala qabsanayaan lambarada 13 iyo 16 lambarada 13 iyo 16 ayay labada degmo kala qabsanayaan waxaan u yeerayaa marka hore warta nabadda halo warta nabadda halo radio Shabeelle ayay nambarkaad qabsanaysaan lambar 16 halo walaweyn halo Shabeelle nambarkaad qabsanaysaan 13 guddiga ayaan ku celinayaa mar kale tartamayaasha degmada walaweyn ayaa caawa nasiib u helay in tartanka ay noo daafuraan waa tahay walaweyn ayaa su-aalaha inoo bilaabi doontaa daawadayaal dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ramadaanul kariim su-aalaha intaynu gudagelin daawadayaasha iyo dhegaystayaasha waxaan xasuusinayaa in su-aalaheennii dhextaalka aysan meesha ka marnayn gaar ahaan su-aashii hadiyadda iyo lacagta aad ku heli jirteen oo habeen walba aan idiin soo gudbin jirnay isla markaana uu taabagelin jiray isbeddelka Somali Syria waa hagaag barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa su-aasha koowaad waxaa iskala tartamayaasha degmada walaweyn walaweyn dhegeyna furo su-aashu waa su-aal diiniya waxaana u dhacaysaa sida tan xafsa binu cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee waxay ka mid ahayd xaasaskii nebigeenna nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan mar labaad ayaan ku celinayaa tartamayaasha degmada walaweyn xafsa bintu cumar bin khadaab allaha raalli ka noqdee waxa ay ka mid ahayd xaasaskii nebigeenna nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan mar labaad iyo mar saddexaad xafsa bintu cumar bin khadaab allaha ka raalli noqdee waxay ka mid ahayd xaasaskii nebigeenna nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan waxaan rajeynayaa tartamayaasha degmada walaweyn inaad fahanteen su-aasha laidin weydiiyey oo aad ka jawaab celin doontaan insha allah halo walaweyn halo Shabeelle jawaabta su-aashaasi jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqon doontaa Zaynaba bintu Macuun jawaabta Zaynaba bintu Mancuud bin Xabiib jawaabta aad bixisaan guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aashii koowaad ee tartanka oo su-aal tarbiye ah ama diini ah waxay u dhacaysay xafsa bintu cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee waxay ka mid ahayd xaasaskii nebigeenna nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee haddaba sheeg magaca hooyadeed ee saddexan jawaabta tartamayaasha walaweyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waa zaynab bintu matcuun bin xabiib waraaba calayk maxaa waraabaa haddana waraawle baa kaa dhume adig adegtaanaga bajinibo laba dhibcood walaweyn maxay tiri mataqaanaa adduunya waa la aroosi waa la uureye aqoonnikii leh igaar u haysaaya see ku dhahay adduunya waa la aroosi waa la uurey ninkii aqoon leh uur haysaa miya igaar u haysaa layidhi aqoonyaan igaar u haysaa waa dhashima yaa idinkugu soo dhiibaa makasaysiin nabadoon aa jiraa mogtahay bris macaan ugu dhib maya nabadoonka nabadoonadooda koo maxamed john baar la dhahaya jooga meesha nabadoonkooda dhan waay
maxamed john baara idinkugu soo dhiibaa 2 dhibcood mee 9 dhibcood alaga qaato daafeed wala weyn beek u mari coca cola ku darsada 2 dhibcood john baarka qaata su-aasha labaad ee tartanka waa su-aal kale oo diini ah waxaa iskala tartamayaasha degmada warta nabadda warta dhigihiina fura su-aashu waa diini waxaanay u dhacaysaa sida tan khadiija bintu quwaylid allaha ka raali noqdee waxay ahayd xaaskii ugu horreeyey ee nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee waxayna ahayd hooyadii ummulmu'minaadka waxaana ay ahayd hooyadii ummulmu'minaadka haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan mar labaad ayaan ku celinayaa tartamayaasha degmada warta nabadda khadiija bintu quwaylid allaha ka raali noqdee waxay ahayd xaaskii ugu horreeyey ee nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxayna ahayd hooyadii ummulmu'minaadka haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan mar saddexaad khadiija bintu quwaylid allaha ka raali noqdee waxa ay ahayd xaaskii ugu horreeyey ee nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxayna ahayd hooyadii ummulmu'minaadka haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan waxaan rajeynayaa tartamayaasha degmada warta nabadda inaad fahanteen su-aashii liidin weydiiyey oo aad ka warcelin doontaan biidni illaah halow warta nabadda halo radio shabeelle jawaabta bismillaah anagoo ah u tartamayaasha degmada warta nabadda su-aashiina la weydiiyey ee diiniga ahayd haddii aan ka warcelino waxay noqon doontaa insha allah faadima bintu zaa'ida ibnul asam jawaabta aada bixiseen tartamayaasha degmada warta nabadda guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aashii labaad ee tartanka oo su-aal diini ah waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda waxay u dhacaysay khadiija bintu khuwaylid allaha ka raali noqdee waxay ahayd xaaskii ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna ahayd hooyadii ummulmu'minaadka haddaba sheeg magaca hooyadeed oo saddexan jawaabta tartamayaasha degmada warta nabadda su-aashaas ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waa faadima bintu saa'ida ibnul asaam bravo calayk warta nabadda ajkanikanta ajkanikana kaninka waka lamada dhibcood waa kuwaasa intay idinkugu soo dhiibaaye waka bay ku noqoto lamadaas lamadoodaba waa kuwaas intay idin soo dhiga shabeel haddii idin soo dhiga ka waran warta nabadda dirisle waay mo ha ogeyne waa ku tuuri kartaa no fiilada beekay raacsiiyeen hal cabana baawarka coca-cola la soo saaraa bravo calayk warta nabadda 2 dhibcood barnaamijka tartan aqooneedka shabakadda warbaahinta shabeelle ayaad ka daawanaysaan bartaynu facebooka ku leenahay ee shabeelle media network barnaamijkan waxaa sidoo kale aad ka dhegeysanaysaan idaacadda shabeelle magaalada muqdisho tartanka bisha waa tahay su-aasha saddexaad ee tartanka ayaan gudbaya waa su-aal kemistry waxaa iskala tartamayaasha degmada wallaweyn dhegina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan waa maxay culayska nuuriyadda laga keenayo burburinta konton garaam oo dabaashiir ah waa maxay culayska nuuriyadda laga keenayo burburinta 50 garaam oo dabaashiir ah mar saddexaad waa maxay culayska nuuriyadda laga keenayo burburinta 50 garaam oo dabaashiir ah waxaan rajeynaya inaad fahanteen su-aasha laydin weydiiyey tartamayaasha degmada wallaweyn oo aad ka jawaab
halow walla weyn halo radio shabeelle jawaabta su-aashaasi jawaabteeda haddaan isku dayno insha allah waxay noqon doontaa 28 gram. jawaabta aad bixiseen tartamayaasha degmada walla weyn guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aashii saddexaad ee tartanka oo su-aal kimistri ah waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada walla weyn waxay u dhacaysay waa maxay culayska nuuriyadda laga keeno ama laga keenayo burburinta 50 gram oo dabaashiir ah jawaabta walla weyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 28 gram wixii rabti sheegaa ku dhaane walla weyn waa la dhahaa daafeedna waa la dhahaa daafeed micnihii su-aal keen walba keen waa dafey haddii wax weyn soo tuurtina walla weynaa u fadhidaa meesha marka hore daafeeda la jiri dafayaala degnaa jireen maya waa dafey ayda keen waa dafey waayno su-aalaha keen waa dafey waxaa jooyaa idin kugu soo dhiibaa makase xaliima caddey allah xalwo baydhabo iyo xabiiba madow 2 dhibcood ka qaata waa hagaag kuwa dadweynaha facebooka su-aasha afraad waa su-aal chemistry waxaa iskale tartamayaasha degmada warta nabadda dhegeyna furo su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan waa maxay culayska carbon laba oxide-ka ee soo baxaya ama ka soo baxaya burburinta 10 gram oo dabaashiir ah waa maxay culayska carbon laba oxide ee ka soo baxaya burburinta 10 gram oo dabaashiir ah mar saddexaad waa maxay culayska carbon laba oxide ee ka soo baxaya ama ka soo baxaya burburinta 10 gram oo dabaashiir ah waxaan rajeynayaa tartamayaasha degmada warta nabadda inaad fahanteen su-aashii laydin weydiiyey oo aad ka warcelin doontaan biidn illaah علينا إن شاء الله 50 جرام jawaabta aad bixiseen tartamayaasha degmada warta nabadda guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aashii afraad ee tartanka waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda waxay u dhacaysay waa maxay culayska kaarboon laba oxide-ka ee soo baxaya burburinta 10 gram oo dabaashiir ah jawaabta warta nabadda su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan walla weyn halow walla weyn halo shabeelle jawaabta su-aashaasi jawaabteeda haddaan isku dayno annaga oo ah degmada wallaweyn waxay noqon doontaa insha allah 4.4 gram jawaabta walla weyn aad bixiseen idinkana guddiga ayaan u gudbinayaa su-aashu waxay dhigaha ka soo furaysatay tartamayaasha degmada warta nabadda si ka faa'iidaysaa waxay u hortaallaa dhigooda walla weyn waxay u dhacaysay waa maxay culayska kaarboon laba oxide-ka ee soo baxaya burburinta 10 gram oo dabaashiir ah jawaabta walla weyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 4.4 gram ninkii soo waraarsada wallaweyn asku nafsaa la yidhi ciyaar moodaa la yidhi caana garoorka wallaweyn lama dhibcood yaa idinkugu dhiibaa tookadan abuukar maxamed macalin abuukar wallaweyn oo salaftirkiisa idinkugu dhiibaa kiskiis idin siiyo mise waxaa idinkugu dhiibaa su-aasha shanaad ee tartanka ayaan u gudbayaa su-aasha shanaad ee tartanka waa su-aal markaasi taariikh ah waxaana iskale tartamayaasha degmada wallaweyn wallaweyn dhegeyna furo su-aasha waa taarikh waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg waktigii gumaystaha ingiriiska uu qabsaday gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya mar labaad sheeg waktigii gumaystaha ingiriiska uu qabsaday gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya sheeg waktigii gumaystaha ingiriiska uu qabsaday gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya waxaan rajeynaya inaad fahanteen wallaweyn su-aasha laydin weydiiyey oo aad ka warcelin doontaan insha allah halow wallaweyn halo radio shabeelle wallaweyn jawaabta tartamayaasha radio wallaweyn su-aashaasi allah waxay ugu jawaabi doontaa
1941. jawaabta aad bixiseen guddiga ayaan u gudbinayaa. su-aashu waa taariikh waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada wallaweyn. waxay u dhacaysay sheeg wakhtigii gumaystaha ingiriiska uu qabsaday gobollada koofureed ee dalka soomaaliya. jawaabta wallaweyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 1941. والله مسعتا والله ما انا ودي حقي وسعتا والله وين معاك دوني مسافة هرتي قلب المسافة مسكين الله ما نبعد ولا وين والله عاد su-aasha lixaad ee tartanka waa su-aal kale oo taariikha waxaa iskale tartamayaasha degmada warta nabadda. warta nabadda dhegeyna fure su-aashu waa taariikh waxaana u dhacaysaa sida tan. sheeg wakhtigii gumaystaha talyaaniga uu qabsaday gobollada waqooyi ee soomaaliya. sheeg wakhtigii gumaystaha talyaaniga uu qabsaday gobollada waqooyi ee soomaaliya. sheeg wakhtigii gumaystaha talyaaniga uu qabsaday gobollada waqooyi ee soomaaliya. waxaan rajeynaya inaad fahanteen su-aasha lidin weydiiyo tartamayaasha degmada warta nabadda oo aad ka jawaab celin doontaan biidni illaah. su-aasha toddobaad ee tartanka waa su-aal xisaab waxaa iskale tartamayaasha degmada wallaweyn. wallaweyn dhegeyna fura su-aasha idinka ayaa iskale waxay u dhacaysaa sida tan. soo hel xagasha qumisa xagashan soo socota taasoo ah 35 digrii 20 minit iyo 48 ilbiriqsi. mar labaad soo hel xagasha qumisa xagashan soo socota taasoo ah 35 digrii 20 minit iyo 48 ilbiriqsi. mar saddexaad wallaweyn soo hel xagasha qumisa xagashan soo socota taasoo ah 35 digrii 20 minit iyo 48 ilbiriqsi. waxaan rajeynaya inaad fahanteen su-aasha lidin weydiiyey oo aad ka jawaab celin doontaan wallaweyn insha allah. halow wallaweyn. halo radio shabeelle. jawaabta insha allah su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqon doontaa 54 digrii 39 minit iyo 12 ilbiriqsi. jawaabta aad bixiseen wallaweyn guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aashii toddobaad ee tartanka su-aal xisaab ah waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada wallaweyn. waxay u dhacaysay soo hel xagasha qumista qumisa xagashan soo socota taasoo ah 35 digrii 20 minit iyo 48 ilbiriqsi. jawaabta wallaweyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 54 digrii 39 minit iyo 12 ilbiriqsi. wallaweyn waxaa la yidhi wallaweyn cawada caadi maahan waxaan ku hayaa wallaweyn waa soo wadaa wallaweynaa la siiyey wallaahi aa umara waqaala aa fadhidaa cawada ciyaar bood wallaweyn yaa idinkugu soo dhiiba cali ayow ka qaata hilowla wallaweyn ka qaata ilaahay waa kuu rooya yaa idinkugu soo dhiiba war nin dheeroo dhadhamaa u dhib ya nin dheeroo dhanaan ee weligaa maqashi abadkey ma maqlin wallaweynas joogaa hilowla abuukar ka qaata عوض هويا والوين هويا ميل كلا أسيعة ماله الله ما نبعد شهر واي كريسبوغاس صح حسوستو ولا يسوق كويا نو عليتا مرنتك وقراعي سوي بصارنا سوي والله ما دعوا صوفيا ما كره عوض ولا فايده يا الله ما نبعد ولا وين ايا idinku soo dhiiba hilowna abu kara wala weyn ka qaata الله ما نبعد
waa hagaag su-aasha sideedaad ee tartanka waa su-aal kale oo xisaaba waxaa iskale tartamayaasha degmada warta nabadda dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan soo hel xagasha toosisa xagashan soo socota 94 digrii 94 40 minit iyo 36 ilbiriqsi mar labaad tartamayaasha degmada warta nabadda soo hel xagasha toosisa xagashan soo socota 94 digrii 40 minit iyo 36 ilbiriqsi mar saddexaad soo hel xagasha toosisa xagashan soo socota 94 digrii 40 minit iyo 36 ilbiriqsi waxaan rajeynayaa tartamayaasha degmada warta nabadda inaad fahanteen su-aasha liidin weydiiyey oo aad ka jawaab celin doontaan biidn illaah halow tartamayaasha warta nabadda halo radio shabeelle jawaabta bismillaah anagoo ah tartamayaasha degmada warta nabadda su-aashiina la weydiiyey haddii aan ka warcelino waxay noqon doontaa insha allah 85 digrii 19 minut iyo 24 ilbiriqsi jawaabta aad bixiseen tartamayaasha degmada warta nabadda guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aal kaloo xisaab ah oo ah su-aashii sideedaad ee tartanka waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda waxay u dhacaysay soo hel xagasha toosisa xagashan soo socota 94 digrii 40 minit iyo 36 ilbiriqsi jawaabta warta nabadda su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 85 digrii 19 minit iyo 24 ilbiriqsi maxaa laga tagaaya wax laga tagaaya male warta nabadda yaa idinkugu soo dhiibaa qaliil lama weyn iyo warta nabadda waa taxsweli waxaa la weydiiyey min 4 su-aal labada degmo waxaa walaweyn ay ka jawaabeen 4tii la weydiiyey waxay kaloo ka jawaabeen su-aal kaloo ka faa'iidaysi ah sidaas waxay ku heleen 10 dhibcood waxaa warta nabadda la weydiiyey 4 su-aal waxay ka jawaabeen 2 ka mid ah iyaguna waxay heleen 4 dhibcood waxaa la kala marayaa 4 dhibcood iyo 10 dhibcood 4 iyo 10 waa farqi weyn ayaa u dhexeeya waxaa iskale su-aasha sagaalaad ee tartanka walaweyn dhegiina fura su-aashu waa biology waxaana u dhacaysaa sida tan sheeg magaca loo yaqaano halka hiddaha uu kaga jiro karamosoomyada sheeg magaca loo yaqaano halka hiddaha uu kaga jiro karamosoomyada mar saddexaad sheeg magaca loo yaqaano halka hiddaha uu kaga jiro karamosoomyada waxaan rajeynaya inaad fahanteen su-aasha liidin weydiiyey tartamayaasha degmada walaweyn oo aad ka jawaab celin doontaan biidn illaah halow walaweyn halo radio shabeelle jawaabta haddii aan isku dayno su-aashaas jawaabteeda insha allah waxay noqon doontaa nucleus jawaabta ku celiya nucleus ama bu'da aye jawaabta aad bixiseen guddiga ayaan u gudbinayaa waa su-aal biology waana su-aashii sagaalaad ee tartanka oo la weydiiyey tartamayaasha walaweyn waxay u dhacaysay sheeg magaca loo yaqaano halka hiddaha uu kaga jiro kromosomyada jawaabta walaweyn su-aashaas ka bixiyeen ayaa ah mid sax aan ahayn haddii ay ka faa'iidaysanayaan warta nabadda halow warta halow tartamayaasha warta nabadda halo radio shabeelle jawaabta jawaabtu waxay noqonaysaa insha allah testis determine factor TBS ku celiya waa testis determine factor TBS aa lasoo gaabe
waa tahay jawaabta aad bixisaan idinkana guddiga ayaan u gudbinayaa. jawaabta warta nabadda ayaa ah mid sax aan ahayn. haddii tartamayaashii labada degmaba ay soo hareer martay yaa naga shaafinaya. su-aashii sagaalaad ee tartanka oo ahayd su-aal biologia islamarkaana soo hareer martay degmooyinka baritamo iyo guddiga ayaan u gudbinayaa. waa tahay su-aashu waxay u dhacaysay sheeg magaca loo yaqaano halka hiddaha uu kaga jiro koromsoomyada. jawaabtu waa jin lokai. mar kale haddaan ku celiyo jawaabtu waa jin lokai. mar saddexaad haddaan ku celiyo jawaabtu waa jin lokai. su-aasha tobanaad ee tartanka ayaanu gudbayaa. waa su-aal bioloji ah. waxaa iskale tartamayaasha degmada warta nabadda. warta dhigiina fura su-aashu waa bioloji waxaana u dhacaysaa sidatan. sheeg halka looga sameeyo borotiinada unuga dhexdiisa. sheeg halka looga sameeyo borotiinada unuga dhexdiisa. mar labaad, sheeg magaca halka looga sameeyo borotiinada unuga dhexdiisa. waxaan filayaa inaad fahanteen tartamayaasha degmada warta nabadda oo aad ka jawaab celin doontaan su-aashii laidin weydiiyey biidni illaah. halow warta nabadda. halow shabeelle. jawaabta aan ka bixinayno su-aashana weydiiye waxaa waaye ribosome. jawaabta aad bixiseen tartamayaasha degmada warta guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aal kaloo bioloji ah. waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda. waxay u dhacaysay sheeg halka looga sameeyo borotiinada unuga dhexdiisa. jawaabta warta nabadda su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah. waa rebosomis. horaa laga soo qabooyaa rebosomis halka looga sameeyo cuntada gudaha unuga loogu jiro gudihiisa. waxaa la iska rabaa cuntada wax looga sameeyo. horaa laga soo qabtay. su-aasha koob iyo tobanaad ee tartanka ayaanu gudbayaa. waa su-aal taariikha waxaa iskala tartamayaasha wallaweyn. wallaweyn dhegihiina fura su-aashu waa taariikh waxaanay u dhacaysaa sidatan. sheeg sanadkii ugu horreeyey ee la aas-aasay wakaaladda filimada soomaaliyeed. sheeg sanadkii ugu horreeyey ee la aas-aasay wakaaladda filimada soomaaliyeed. mar saddexaad wallaweyn. sheeg sanadkii ugu horreeyey ee la aas-aasay wakaaladda filimada soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen su-aasha laydin weydiiyey oo aad jawaab ka bixin doontaan tartamayaasha degmada wallaweyn biidni illaah. halow wallaweyn. halow radio shabeelle. jawaabta insha allah su-aashaas jawaabteedu waxay noqon doontaa 1975. jawaabta aad bixiseen wallaweyn guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aal taariikh ah. waana su-aashii koy tobnaad ee tartanka. waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada wallaweyn. waxay u dhacaysay sheeg sanadkii ugu horreeyey ee la aasaasay wakaaladda filimada soomaaliyeed. jawaabta wallaweyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax aan ahayn. haddii ay ka faa'iidaysanayaan tartamayaasha warta nabadda. halow warta nabadda. warta nabadda codkiina kor u qaada jawaabta. halow radio shabeelle. jawaabta. bismillaah anagoo ah tartamayaasha jawaabta warta nabadda. 1972.
jawaabtii idinkuna aad bixiseen guddiga ayaan u gudbinayaa waana jawaabta saxda aan ahayn. haddii tartamayaashii labada degmaba ay garan waayeen xilliga la asaasay ama sanadka la asaasay wakaaladda filimada yaa naga shaafinaya. su-aashii 11aad ee tartanka ee soo hareermartay degmooyinka baratamaya guddiga ayaan u gudbinayaa. waa tahay su-aashu waxay u dhaceysay sheeg sanadkii ugu horreeyey ee la asaasay wakaaladda filimada soomaaliyeed. degmooyinka waxaan filaya in aada usoo dhaweeyeen labada degmaba, midna kore uga baxday midna hoos. waxaa markaasi ay noqonaysaa jawaabta saxda 1973 waa 1973. mar saddexaad haddaan ku celiyo waa 1973. tartamayaasha degmada warta nabadda. warta dhigihiina fura su-aashu waa taariikh waxaanay u dhacaysaa sida tan. sheeg magaca filimkii ugu horreeyey ee ay soo saarto wakaaladda filimada soomaaliyeed. sheeg magaca filimkii ugu horreeyey ee ay soo saarto wakaaladda filimada soomaaliyeed. sheeg magaca filimkii ugu horreeyey ee ay soo saarto wakaaladda filimada soomaaliyeed. waxaan rajeynaya inaad fahanteen su-aasha laidin weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda oo aad ka jawaab celin doontaan insha allah. halow warta nabadda. halo radio shabeelle. jawaabta. bismillaah anagoo ah tartamayaasha degmada warta nabadda su-aashii nala weydiiyey haddii aan ka warcelin waxay noqon doontaa dhan iyo xarago. jawaabta aad bixiseen warta nabadda guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aashii 12aad ee tartanka oo su-aal kaloo taariikh ah. waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda. waxay u dhaceysay sheeg magaca filimkii ugu horreeyey ee ay soo saarto wakaaladda filimada soomaaliyeed. jawaabta warta nabadda su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah, waana filimkii dan iyo xarago. anigu caabu maleeyahaybo filimkii eri iyo geel. su-aasha 13aad ee tartanka ayaan gudbayaa. waa su-aal fiisigiisa waxaa iskale tartamayaasha degmada wallaweyn. wallaweyn waa su-aasha dhankiina ugu dambeysay. dhegiina fure waxay u dhacaysaa sida tan. culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka heerkulku yahay 27 digrii centigrade. haddaba waa maxay heerkulka marka muggu uu yahay 0.5 mitir cubic? mar labaad tartamayaasha degmada wallaweyn. culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka heerkulku yahay 27 digrii centigrade. haddaba waa maxay heerkulka marka mugga yahay 0.5 mitir cubic? mar saddexaad. culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka heerkulka uu yahay 27 digrii centigrade. haddaba waa maxay heerkulka marka mugga uu yahay 0.5 mitir cubic? waxaan rajeynayaa inaad fahanteen su-aasha laidin weydiiyey tartamayaasha degmada wallaweyn oo aad ka jawaab celin doontaan biidn illaah. halow wallaweyn. haro owleediyo shabeelle. jawaabta. insha allah su-aashaasi jawaabteeda waxay noqon doontaa 37.5 digrii 37.5 kelfan. jawaabta ku celiya tartamayaasha degmada wallaweyn. 37.5 digrii centigrade. jawaabta aad bixiseen guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aashii 13aad ee tartanka oo su-aal fiisigiisa waxaa la weydiiyey wallaweyn.
waxay u dhacaysay culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka heerkulku yahay 27 digrii centigrade. haddaba waa maxay heerkulka marka muggu yahay eber dhibic 5 mitir cubic? jawaabta walla weyn su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax aan ahayn. haddii ay ka faa'iidaysanayaan tartamayaasha kale ee warta nabadda. halow warta nabadda. halo radio shabeelle. jawaabta jawaabta warta haddii nabadda. aanu isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada warta nabadda waa -235.5 digrii centigrade. jawaabtii idinkuna aada bixiseen guddiga ayaan u gudbinayaa. jawaabta warta nabadda ayaa ah tan saxda aan ahayn. su-aasha 13aad ee tartanka oo ahayd su-aal fiisigiisa labada degmana soo hareer martay yaa naga shaafinaya. su-aashii 13aad ee soo hareer martay degmooyinka baratamayo guddiga ayaan u gudbinayaa. waa taa su-aashu waxay u dhacaysay culays joogta ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka heerkulku yahay 27 digrii centigrade. haddaba waa maxay heerkulka marka mugga uu yahay eber dhibic 5 mitir cubic? jawaabtu waa 37.7 calvin. mar kale haddaan ku celiyo jawaabtu waa 37.7 calvin. mar saddexaad haddii aan ku celiyo jawaabtu waa waxay qaldeen halbeeg mar way sheegeen ku celiskii labaad haddana laba mar digrii markii waa digrii waa ku ceshteen calvin dheheen ku celiyaan ana mar kaleeto waxaana boontiyadana waxaa waaye marka digriiga waa caqabad xoog leh waaye. imtixaanka xitaa imtixaanka waa la iska qaldaa markii halbeeg aa ka tagto. halbeeg aada u muhiim yahay. 37.7 calvin. su-aasha 14aad ee tartanka waa su-aal kale oo fiisigiisa waana su-aasha ugu dambeysa ee tartankeenna caawa. waxaa iskale tartamayaasha degmada warta nabadda. warta dhigiina fura su-aashu waa fiisigiis waxaanay u dhacaysaa sida tan. culays joogto ah ayaa leh mug ah 43 waa 4 aan idhaahdee ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka cadaadisku yahay 150,000 oo baskal. haddaba waa maxay cadaadiska marka muggu yahay 5 mitir cubic? mar labaad culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka cadaadisku yahay 150,000 oo baskal. haddaba waa maxay cadaadiska marka muggu yahay 5 mitir cubic? mar saddexaad tartamayaasha degmada warta. culays joogto ah ayaa leh mug ah 4 mitir cubic marka cadaadisku yahay 150,000 oo baskal. haddaba waa maxay cadaadiska marka muggu yahay 5 mitir cubic? waxaan rajeynaya inaad fahanteen tartamayaasha degmada warta nabadda su-aasha laidin weydiiyey oo aad ka warcelin doontaan insha allah. halow warta nabadda. halo radio shabeelle. jawaabta. bismillaah anagoo ah ku tartamayaasha degmada warta nabadda su-aashiina la weydiiyey haddii aan ka warcelino waxay noqon doontaa insha allah 120,000 oo baskaal. jawaabta aada bixiseen warta nabadda guddiga ayaan u gudbinayaa. waa su-aashii 14aad ee tartanka oo su-aal kaloo fiisigis ah. waxaa la weydiiyey tartamayaasha degmada warta nabadda waana su-aal saameyn kule dhibcaha barnaamijka. culays joogta ayaa le mug ah 4 mitir cubic marka cadaadisku yahay 150,000 baskaal. haddaba waa maxay cadaadiska marka muggu yahay 5 mitir cubic?
jawaabta warta nabadda su-aashaas ay ka bixiyeen ayaa ah mid sax ah waana 120,000 baskal. bravo عليك warta nabadda wareer haddii isku keentid webkaa lagaa tumaa laweyn ayaa inoo soo gabagaboobay tartankeena aad buu u xiiso badnaayo caawa labada degmo waxay muujinayeen cududooda markaan leeyahay hadda waa cududooda waxbarashada iyo tacliinta ay ka gaarsiisan yihiin gacmahooda ayaa moodaysa 100 oo kilomitir xana waxay leedahay 802 kilomitir marka mid ka mid a soo dooro oo jawaabta inoo soo bixi marka waxaan siinayaa tartamayaasha labada degmo si ay iyagana noola wadaagaan dareenkoodii tartankii caawa halkan ku dhex maray inta aanu natiijada aanu u gudbin oo guddiga uu xisaabtii iyo markaa isku dardarayo oo la fiirino marka waxaan siinayaa oo ku horeynayaa tartamayaasha degmada warta nabadda sababtan warmaray iyaga ayaa home waaye laakiin qolada kalena awey ma ahano sababtoo ah magaca shabeelle shabeelle halkee lagu soo asaas gobolka shabeellada hoose magaca shabeelle webiga shabeelle gobolka shabeelle ولا وين لفتكت هم واي هم واي تبيلا ماما ليه هم واي دافت هم واي مركلو هم واي ومدري ورتنا ودا كبلان انا waxaan dhigi lahay mataqana qofkii wax soo gaari ya goolad koor martino ado goysila iscafaanaysa qasha lagu siiyo kii dhastu ku siilay degmada warta nabadda in qadka ay ka maqan yihiin oo aysan maqlayn tartamayaasha kale waxaan siinayaa markaasi walaweyn halow walaweyn radio shabeelle soo dhawaada tartamayaasha degmada walaweyn aan dhownahay aadaa u mahadsantihiin shabeelle shaqaalaheeda iyo madaxdeeda sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa beko iyo coca-cola duusiga adalti guddiga meesha fadhiya iyo majaajiliistayaasha alxamdulilah calaa kulli xaal waan ku qanacsannahay natiijo walbo caawo ay ku dhawaaqda shabeelle maadaama aan gobolka shabeellaha hoose ka soo jeedno waana ku qanci doonaa kulan noo dhiman insha allah wixii kasoo baxan waan ku qanceynaa habeen wanaagsan aad leenahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak tartamayaasha degmada walaweyn waan idinkaga mahadcelinayna sida